Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar Sheekhul Beledka deegaanada galbeedka Somaliland oo khudbadii Jimcaha maanta ka akhrinayay masjid jaamaca magaalada Boorama ayaa waxa uu kaga hadlay saameynta khamrada iyo daraagisku ay ku yeelan karaan bulshada kala duwan ee ku nool deegaanada Somaliland gaar ahaan magaalada Boorama isagoo sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha magaalada Boorama ay si weyn ugu soo badanaysay khamrada iyo waxyaabaha kale ee la halmaala isla markaana bulshada ugu baaqay inay iska qabtaan dadka keenaya waxyaabahaasi mujtamaceena maanta halkuu marayo waa ogtihiin fasaadka halka laga marayo waa ogtihiin inaan ku dhownahay ummadihii ibaahiyada ahaa ee wax walba xalaashanayay ee inta sameynaysa maaha inta kalena caadi u arkaysay shabah nooci oo kala ah inagu socda magaaladeennan ama gobolkeennan waa ogtihiin halka maanta ay ka marayso khamradii ay ka marayso gobolladii kale ayaa inagu soo tilmaamayo oo leeyahay Boorama wax la mid yahay ma jirto leeyahay waligay sanadka maanta ka hor ma aan arkin weel khamri ku jira ninkayga daadaasi ee gadahaasi weel khamri ku jira waa khamri la yiraahdo baarar aan hormarno oo magaalooyinka waaweyn oo wadka khamriga lagu iibiyaa la yiraahdo maahin waka halka yaala isagoo la yiraahdo maanta ayagu horeysa sanadka maanta ayagu horeysa meesha dariiqeed martaba qurro wuxuu bad laga cabay oo halka yaala dadkiisa markaas lagu tusaya waka lagu leeyahay waa ka hadii ummadii ay waxa dareemi weydana deewaam siibo way ummadan waxa dareemi weyday ummadii inaga horeeyay maxaa lagu halaagay lucina ladina kafaru min bani israa'iila ala lisani daawud wa ciisa ibn maryam maxaa lagu halaagay kaanu la yatanahuna an munkarin fa'alu wixii munkar ah xumaana ay sameeyaan baanay iska nahyin jirin oo ina waxba u arki jirin inuu baas leeyahay inuu balaleeyahay aan u arki jirin waxa lagu oranayaa aqalkaas khamri lagu iibiyaa dan laga maray waxyaabaha fool xumada ah ee maanta ku soo biiray gobolkeennii waa darkiisa waxa khamriga la soo qaadayo lagama ba soo iibiyaa la yiraahdo dadka qaado hadhow waxaad lacag shunkaan baa la yiraahdaa dad maxaa dadka baahidina ay taagan tahay oo halkan xuduudda agteena inta la soo dhigo qofka leeyahay ma lacag haba bixin nimaka lacag kolkaad soo iibiso wax keen hadana qaado waa laga dhacay hadii la yiraahdo laguma weydiinayaa lagu leeyahay ma jirto looma qabanayaa lagu leeyahay lama weydiinayo lama oranayo maxay khamriga lacagtiisii keen lama oranayo adiga kaama dhacmin qofkaan uu iga dhacmay buu leeyahay marka waxa weeye inaynu u guntano dawladda aynu ku garab gal arintaas sidii loo joojin lahaa fasaadka baad arkaysan halku marayo waxaad arkaysan inamadeenii yaryara oo sida tibihii u xiiranayaan diyaabayso sida madaxa u taagay oo sida u wada taagay waa dhaqan xumo magaalooyinka kale waa laga dagaalamaa baali wuxuu noo sheegay gudoomiyaha jaamacaddu waxaan ku soo rogayaa buu yiri jaamacadda inaanu soo gali kareynin jaamacadda inaan yar oo sidii caadiga u soo xiirta maaha inaan dhowr soo yeeshay soo gali maayo buu jaamacadda iyo akhlaaq xumada keenaya isku ekaysiinta gaalada la isku ekaysiinayo in yar baa wuxuu soo gashanaya surwaal yar oo lugaha ku dhagan buu soo garanaya garan yar oo ku dhagan uu soo garanaya safku waliba kula soo galaya safkii masaajidka habeen dhaweyto subax dhaweyto mid baan war timaha inta ay leeyihiin oo sida u taagay anu isma lahayn waxaan waxba kama uraynay inanka laakiin kolkii dambuun baa la sheego lagu cabsanaa leeyahay war bal halkan ma joogsataan qoladiinaasi halkan ma joogsatee xaga nooga durgumaan oo xaga tag wax yar buu laba qof noo dhixiyay atixiyaadkiiba ku seexdaba in xaafadaha gudiya laga sameeyo in masaajidada wacyi gelin laga fidiyo sidoo kale Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar waxa uu fariimo kala duwan u diray odayaasha iyo cuqaasha kala duwan ee reer Somaliland gaar ahaan magaalada Boorama isagoo ugu baaqay oo dulmiga waxyaabaha ugu waaweyn ay ka mid tahay qof socdo oo miskiin oo iska socdo oo la baaranayo oo ayna baaranaynin tuugtii la yaqaanay ee buuraha galis ayna baaranaynin inamadii xaafadaha ka soo toosa iyo ka soo kacay uuni ay baaranayaan waa ibtiro iyo musiibo inagu soo kordhi maaldhowto marka waxa weeye arinta waa talaaba laga qaadaya dawladdu waanu guntaynaa bay tiri maca gudigii nabadgelyadu waxaan ka codsanaynaa salaadiinta iyo cuqaasha iyo odayaasha kale wax garadka dadka laga daba tagay ee kolka dambe laga daba tagayo in la joojiyo nidaamka dawladda loo daayo xarig iyo xabsi adag gabdho yaryar badarka saalka leeyahay oo soo qaadayayo hadhow ba odayadu intay tagaan baa leeyahay maxay hayday kan iyo kan garanay leeyahay taa waxaad ogtihiin sharciga islaamku waxana waa jaldi hadduu dadku dhalinyar yahayna waa la jaadli hadduu reer leeyahay zinada garana waa la rajmin
wixii caynka ahaabaa la fududsanaya markaasun bay odayaal halkan isla tegayaan oo ay leeyihiin sidan ayaa loo xeerkeenu muxuu ahaan jiray dee bal in soo horta dadkan xidhan inoo soo daa dibadda aan ku heshiino markaa waxaan leenahay cuqaasha iyo salaadiinta iyo odayaasha kale wejiga ah arrinkaa waad fudaydinaysaana ha fudaydinina oo ka joogsada oo dembigaa ha la gelina dadkaasi qof walba cuquubadiisa ha la mariyo wixii waxaa lagu sheego ama khamri lagu qabto ama lagu qabto faaxishada lagu qabto ha ka hadlina in dhalinyarada lagu soo qabto anshax xumada ay jeelka ay kaga daba tagayaan iska daayaan